أحمد dhibaatooyinka uu geystay Jubbaland uu ka geystay dhibaatooyin la soo koobi kara maaha haddii aan dib ugu noqdo dadkii la soo shaqeeyay aniga horta shakhsi ahaan Axmed waan isu dhownahay waa madar baan nahay dadka isu dhawaanahay hadii la yiraahdo dhalasho ahaan ama qabiil ahaan la yiraahdo waxaan u maleynayaa mataqaanaa aad ban family hoosan nahay ama mataqaanaa qaraabo hoosan nahay waa la soo shaqeeyay wax badan oo la soo qabtay bacdallaahi waxaan dhihi karaa qofka koowaad ee kursiga inuu ku fadhiisto mas'uul mataqaanaa ka ahaa baan ahaa dad kale oo fara badan oo naftooda u waayeen way jiraan dad u dhaawacmana way jiraan dad mataqaanaa joogana way jiraan Axmed Madoobe yani siduusan ehel u ahayn ama siduusan mataqaanaa qof ihsaan la u ahayn ama siduusan u ahayn qof ballan u ahayn dadkii la shaqeeyay oo dhan inuu dilay nin magaranaysa uu dhaawacay sidoo kale ama rag kale oo ilamida oo hadda Ilaahay uu nabadbaadiyay rag ka cararay rag magaranaysa iska jiifo oo mataqaanaa baalkii ah ee kulligood wada yihiin laga soo bilaabo maalinkan bilowna ilaa maalinka maanta aniga waa kan ku sheegay oo dhaawac uu gaarsiiyay Ilaahay baa badbaadiyay waxa weeyaan aakhiraan ka soo noqday waana suntii uu sameeyay iyo dhaawacii uu geystay weeyaan innocent baan ka ahaa qaafil baan ka ahaa ninda cadu oo magaranaysa walaalkeen mooday laakiin dhibaatadaas hoos iga maleegay ka soo bax nin Jamaal la yiraahdo Jamaal Umar Xuseen oo ka sheekay maal dhaweeto Jamaal wuxuu ahaa madaxii nabad sugidda ee mataqaanaa Kismaayo ama Jubbaland wiilkaasi maanta noloshiisa waa 50-50 yani nin hadli kara ma aha nin qabsan kara ma aha dhoobley buu joogaa Jamaal Umar Xuseen col ayaa la yiraahdaa waxa weeye sidaas oo kale معلم محمد يودر كل سودل ويسوع خارج معلم محمد ووزير وحبرشاد جبلان ولا رجي نلا صور جبلان ماشى سوق جرسيبها ويلكي ونحي أرنكي وورق جحي معلم محمد وش يحول على أحمد ساس وسمين يا إسلالي معلم محمد حوت تجي بتقنا أحمد مذوبي سيدات وش يكتي المعلم كوش يكتي أخبارتي يلا هيد ويل دلي إذا مو دلي كل جيس يسوق بتقنا حب العالم قاعد بدل ما يقول يسلوه يا ري ما أنت ويل كاس حوي لا دوبلي نلوش يسلوه كنتم وأنا حجرين كصبح نلا كشكيري مالو يتو ولالكيا وعدد وحيجي وإبراهيم حسن جوحلي هذا وحوي سلاس وكل مالك كان كسباي قبلنا تليها وحلاقة دقي بتقنا إيربوت كيا يا لقى دقي nin hore walaalkii oo ninkaas shaaw ka mid ahaa oo dilay darteed si uu u ogaanin Ibrahim Xasan Qoox ciidankii staafkiisa ahaa intuu lacag siiyay xoolo siiyay Axmed uu diray wiilkii waxa lagu toogtay ma garanaysaa ciidankii staafkiisa oo toogtay wala ninkii madaxda u ahaa meesha joogay Axmed marka ragga nin ma garanaysaa oday ahaa oo korneel ahaayo Cabdi Madoobe heebaan la yiraahdaa ka mid ahaa oo intuu diray laba wiil lagu toogtay mataqaanaa masaajid hortii lagu toogtay Axmed marka khatarta uu ku hayo dadka shacabka ama dadka ehelka ama dadka madaxda ka ama dadka la shaqeeya waa khatar marka dadka hadda aan aqoonin Axmed khatartiisa iyo wuxuu yahay aan aqoonin hadda u ordaya inay mataqaanaa ama caawiyaan ama kursi ka caawiyaan waxa xaqiiqa inay isaga ku soo noqonayaan qisayaro igu dhacday maalinkii aan sameeynay dastuurka mataqaanaa Jubbaland ee Nairobi ku qoraynay waxa ka mid ahaa karateeriyaha lagu dooranayo madaxweynaha waxa la yiri waa inuu noqdo ay soo jeediyeen dadka badankood waa inuu yeesho madaxweynuhu waxa la yiraahdo waa inuu academic yahay oo shahaado sare haysto qofka kaliya ka soo istaagay ee yiri maya waa in mataqaanaa 10 sano oo loogu daro khibrad maamul oo loogu daro أنا مركز مسكحة كوهاي أحمد مذوبة ودي عروض ربي مدحويني يانها رجي مالك كاس أن هوشاس اسمه خلافنا كرري تودي كرري وحكم ذا عبد الغني جامع وحكم ذا مر جبل المدحوينها وزير كمدحتوي ذا كم ذا وحكم ذا نيكل أورنجري جنرال علي مذوبة كم ذا وحكم ذا نيكل عبد العزيز بكم ذا بتقنا فذوه اسمان محمود عبد العزيز اسمان محمود بaa kamid aha ragaas maalinka waxay u dhaheen axad muxtaaraw ninka jaahilka amaanta hadaad u doodo
oo meeshaa soo saarto berri adoo ku cunid ay ugu dheheen runtii axmed madoobe intaan tijaabin karna waan tijaabinay maalinba inta mataqaanaa wax la dhista ayuu cuni oo uu dili oo waxayn waynu aragnay marka ummadda soomaaliyeed reer jubbaland taladayda hadday tahay waxaan dhihi lahaa walaalayaalow ninkaasi waxma soo kordhinayo oo waan aragnaa inuu ku fashilmay maamulkii waan aragnaa inuu khatar ku yahay dadkii shacabkii waan aragnaa inuu dalkii khatar ku yahay oo Kenya ma garanaysa u gacan gelinayo waxaan ma garanaysaa codsanhayaa dadka reer jubbaland dadka ehelka dadka deegaanka dadka ma garanaysa la soo shaqeeyay dadka og ay yaqaana inay mataqaanaa bannaanka axmed ka istaagaan oo ay mataqaanaa garab istaagaan ragga musharaxiinta ee nadiifta ee gacmahoodu ay dhiig lahayn ee maamul aqoonta ee aqoonyahanka ee hadda sharaxan ee mataqaanaa uu ka mid yahay mataqaanaa ninka la yidhaahdo ee wasiir Omar uu ka mid yahay uu ka mid yahay xildhibaan cabdirashiid xidig uu ka mid yahay uu ka mid yahay mataqaanaa seeraar uu ka mid yahay oo raggii meesha dhiigga u soo horay uu ka mid ahaa raggaas noocaas oo kale ah yaa ila quman oo aan mataqaanaa aan rajaynayaa inaad qaadan doontaan waa dadkii dalka u dhashay waa dad ma garanaysaa gacmahoodu ay nadiif yihiin waa dad ma garanaysaa lala talin karo wax lala qabsan karo waa dad tanaasuli kara axmedna tanaasuli kara ma aha marka maanta haddii aan u dayno meel ka sii fog bay tegi 4 sano oo dambana wuu sii rabi dilkiisa iyo dhibaatadiisu waa sii socon waxtar xumadiisa way sii socon marka intaasaan kusoo gabagaboobi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi